macsiyada iyo dambigu ku leeyahay qofka iyo ummadaba ama dalka iyo dadkaba. waxyaalahan u dambeeyey waxaa aad loo celcelinaya oo warbaahinta inagu wereeriyey inuu gaaladii waalay oo nafta u keenay fayris yaroo ilina qabataya oo laydhaa corona oo ka soo bilaabmay nimanka mulxidiinta ah ee aan ilaahay rumaystay subxaanahu wa tacaala China. fayraskaa yar ee ilaahay uu ku salliday waxaynu oran karaynaa waa abaalmarin ilaahay ku abaalmariyey subxaanahu wa tacaala gaalnimada ay sameeyeen aana ilaahay u rumaystay iyo iyagoo cadaaday oo ciqaabay ummadda kooban ee muslimka ku dhex nool. caalamka meelaha ugu dhib badan ee muslimka lagu dhibaateeyo ayay China ku jirtaa. nimanka ilaa xorriyad baanu ka hadalnaa iyo dimuqraadiyadda gaaladuna reer galbeedkuna way barakeeyaan. wax ka hadlaya arki maysid. xijaabkaa lagu haystaa, salaadaa lagu haystaa, inay jinsiyad yeeshaan baa lagu haystaa, dalkaba ka mid noqdaan, wax diina inay yeeshaan. xeriyay ku xaraysay ummado dhan baa xerya ku xaraysan oo maxaabiis muslimnimada ay leeyihiin daraaddeed. jawaabtii maxay noqotay inuu iyagiina ilahay xero ku xareeyey. xeradii ay muslimka ku xareeyeen jawaabteeda waxay noqotay iyagii baa ilahay xero ku xareeyey. si dhaqsa aynu arkaynaba wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. ilahay colkiisa isagu baa yaqaana. kullu haadihi lmawjuudaati junuudun lahu. waxalla waxaan caalamka ka jiraa waa colkii ilaahay. qoladu dooru ilaahay soo istaalaya mid la arkaya midaan la arkayba. waxaa maalin dhaweydoo dheeray ninkaanu cudurkaasi bilaabnin uu ku faanayay ninka China ka madaxi awoodda uu leeyahay. awoodda China adduunkan cidi isma hortaagi karta weligood ma hawadaan. ta dhaqaale weliba dhaqaalaha ayaa weliba sii calaamadinaya annaga hagayna weli adduunyada. haddana waxaa dhacday in loogu yaro gabaday dhaqaalihiisii oo dabeedna la sii buunbuuniyey baalkan. tani dhaweyd taqriir uu soo saaray qaybta dawaariga ama emergencyga nin dictoora oo jooga sacuudiga oo muslina arabka meeshan la yidhaha shidaalka sacuudiga buunbuunis baa ku jiray gudbaalka. China laga faa'iidaysanaya way macnaheedu oo qaar badan oo ka dil badnaabaa ka dhimasho badnaabaa jiray. kan beersada ma boqolkiiba 10 meelahaasaa ku dhinta baa la yidhi. laakiin haddana waa laga sii faa'iidaysanaya ila gaaladu yeelo waysayaane. taasina waa arrin saddexaad. gaadnimadiisa muslimkuu dhilay, kibirkiiyo xooggu sheegtay. in yar baa lagu kala yaacay oo dadkii joogaba waynaga safrila dadkeeniina way soo bixi lahayn. kuwii halkana safarkii waa laga ankaray. jawaabaha ilaahay uu bixinaya subxaanahu wa tacaala dhaqsaha ayaynu arkaynaa ee u jawaabaya kuwa cadowga ah. waxaa qur-aanka iyo xadiidkuba ayna barayaan mar kasta oo dadku dembiga ay badsadaan in ciqaabta alla badanayso. dembiga noocyadiisa kala duwan mid waliba jawaab buu leeyahy. maxaad ilaahay kula yaabaysaad kaga hor iman kartaa? waxaynu ogsoonahay dadka madaxda maamula cidda ka tala qaadata ee u jajaban ee u heelan mansab iyo maalba oo hura. midkaasi waa innaga bayna waa taageerayaasheen. kursigana ha la siiyo, lacagtana ha la siiyo, ha la ixtiraamo ayay idhahdaa. waa dad yaroo inala dhigo oo ammaanahaya ayaa sidaa u dhaqmaya. maxaad u malaysa ilaahay uu ilaa iska keen lahaa subxaanahu wa tacaala. walilaahi almathalu laclaa. ilaahay baa tilmaanta u weyni u wanaagsan leh. addoonku abuuray ee u arsaaqay ee imkaaniyaad iyo arrimo wanaagsan isugu hagaajiyey oo edadbahadan kala horyimay nima jirjidba mana awoodin imanaa siinin oo nicmadii ilaahay diiday oo dafiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kala horyimi doola tuso. maxaad u malaynaysa? in markaa waxyaabo badan adduunka lagu tuso wuu istaahilaa iyadoo weliba ilaahay naxariistiisaa ballaaran ee uu doonayo inuu fursad siiyo uu markaa si uu soo noolo. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
halkaa la gaari buu dhahay kuwa yaryar baan ku dayayaan dadkan adduunyada ku nool weliba si aanu halaaga maha waa si ay u soo noqdaan buu dhahay idan markaa waxa aynu arkayna ku dhacayaa waa dubay karbaash ilahay uu ku dhufanayo gaalka kibray karbaash weyn nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoogu sheegay xadiid saxiixa oo asxaabta ay nooga soo warinayaan ridwaanullaahi calayh waxalla waxa cudurradan adduunyada dhacaya inay yihiin ciqaab ilaahay oo caasinimada kaga jawaabaya dadku ay caasi noqdeen wuxuu nabigu yidhi yaa macshara almuhaajiriin khamsun ida ibtuliitum bihin waacuudu billahi an tudrikuuhun asxaabtii muhaajiriintaa buu ku halqabsaday oo nabigu waxau yidhi 5 arrimood marka la idinku sallido ilaahay baaba ka magan galay inuu idinku sallidee waxa ay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda ta u horraysa waxaa la yidhaahda faaxishadu qola kuma dhex faafto ooma muujistaan ilaa fashaa fiihim adaacuunu waalawjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madad faaxishadu waa sinada iyo dadkoo iswaxeeya iyagoo wax meheraba isu haynin oo taasina ay iskaba badbadato oo meelaha ka bidhaamayso laga arkayo ay dadkiiba ka xishoon waayo hadday taasi dhacdo cudurruun baa ilaahay uu ku sallidaa uu ka mid yahay daacuunku iyo cudurro la garanba waayaba oo aslaaftoodii ama ummadahoodii hore aanay lahayn bal inta cudura imika sinadii ka dhalatee sinadii markii gaaladu ay xayeysiiyeen cudurkii innagana wayna soo gaaray markaasaa daayartii qaar waxay gaadeen ay idhaahdaan wiilashiiyo gabdhaha markuu inanta muslaxanayo waynu iska wadi haddaad uur yeelata anaaba kugu qaadan oo de odayaashii maa soo diri doonaayo ku qaatu maloolo uurkan inantan urayseen oo dhaqankeedii soomaha xuba waxaad arkaysaa mararka qaarkood magaalada hareeraheedoo tagaasi yaryar baa wada taagan waa meel cidla ah wiil iyo gabadh baa kasoo boodaya haddii la isdul taago markaa cudurrada irisku uu ka mid yahay hore u jirin abaalmarin weeye ilaahay subxaana wa tacaala dadka erabta daran uu ku abaalmariya siduu rasuulku caddaynayo xikmaagu ilaahay noo soo diray arrinta labaad walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ilaa ukhiruu bisidiin wa shiddati lma'uuna wa jawri sultaani calayh dadku hadday khalkhal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaarta ay noqdaan qaar bila ammaano ah oo tooduun ay u daran tahay oo tu ummadeen eegaynin oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunnada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen ilaahay wuxuu ku sallidaa abaara buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo duruuf adag iyo dad madaxa oo jaa'iriinahoo xaqdalool oo xaq darra ku wada oo midibowg uu ka daran yahay ka kale waa kii horaaba dhaamay ka balaan ku celina doorashada bal inaynu ka soo hayno way ka sii darta waa ilaahay baa daba socdo dadka subxaanahu wa tacaala ilaa alla wuxuu inna rabbaka labilmirshaad ilaahay dadka dhabagal ugu jiraa iyagu iskama arkayaane isaguu eegayaa kuurku ugu jiraa isagaa raadinaya daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubbaha u la dhacaya dhibka ku ah ee u talinaya warshaal iyaga loo talay iyo waxay kasbadeen arrinta saddexaad waxa weeye hadday sekada bixi waayaan municu lqadra min asamaa ilaahayna roobkiisuu ka hakiyaa oo uu ka joojiyaa haddii aanay xoolaha mayaanadu jirin ee aan dembi lahaynna loomaba shubeen buu nabigu yuri sala allahu calayhi wasalam arrinta afraad waxa weeye walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuulihi ila sallata allahu calayhim caduwan min gayrih faأkhaduu bacda ma fii aydihim haddii ay dadkaasi ballanka ilaah iyo rasuulka jeliyaan oy noqdaan wacada la qabayaan kii madaxdii been buu sheegaya kii taajirkii been buu sheegaya ku kastoo bulshada ka midi sharciga ilaahay iyo wixii ballan laga qaaday ma fulinayo iyana isuma fulinaya ilaahayna uma fulinaya rasuulkana uma fulinaya ballan la-aan dadku meel lagu soo hagaaga male arrintaasi haddii ay dhacdana cadowbaa ilaahay uu ku sallidaa buu nabigu sala allahu calayhi wasalam ka faramaroojiya waxaanay ilaahay iyo
rasuulka u seegeen ay iste ka fala maroojinayaan. arrinta shanaad waxa weeye wamaa lam taxkum a'immatun bikitaabi illahi wayatakhayaruu mima anzala allahu ila jacala allahu ba'sahum baynahum. hadday kitaabka ilaahay ku dhaqmi waayaan iyo waxyiga ilaahay uu soo dejiyey oo ikhtiyaarkooda ay ku qaadan waayaan, ilaahay wuxuu ku sallidaa cuqubo uga dhigaa dhexdoodu isku sallidaa. qabaa'ilkiibaa isdilaya, kooxiibaa isdilaya, dowladii yaryaraa xad kale ah, jaarkiibaa isdilaya, shakhsiyaadkii, saaxiibadii, dad oo kala nooca oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaranla ayuu waxay isku dilayaana la garan waayey ayaa meesha ka soo baxaysa. laakiin nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo tawfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa, waxyi buu ku jiraa. lishariicati samaaxa, shareecadu waxay leedahay macaan iyo waafajin alleh iyo ilaahay isku soo dhaweeyo dadka. marka laga amar qaato isaguna ummaddu isku ururiyaa. markaa dadkan kala firdhee faraaraha lana sababtaasaa ugu cabu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam. xadiidku waa saxiix, ibnu maajah baa wariyey raximahullah. idan marka arrintaa waxaynu ka arkaynaa inay waaqiceenna aada uga muuqanayso, mid shisheeyana intaynaan u gudbin. sixidda la saxana waxaynu ku heli karaynaa barwaaqada iyo banaanaha uu nebi maxamed sheegay sala allahu calayhi wasalam. waxa isweydiin leh dhibaatooyinkan adduunka ka dhacaya, cudurradan iyo duruufahan iyo waxa faraha badani dee gaalun kuma dhacaan, caasiyoo keliya kuma dhacaan. laakiin dad badanoo wanaagsan bay ku dhacaan oo awliya ah oo saalixiin ahoo maanti ahoo dembiba gelin oo maxaa iyagana xaggee laga raacay? iyana xaggee ka qodax qaateen? xaggee laga helay? waxaa jirta bani aadamka waxa ku dhacaa adduunyada waa laba qaybo. qayb waa cuqubo, waa qofka caasiga ah cuqubo la marinayo. qaybina waa ibtilaa, imtixaan wey. ilaahay addoomaha u imtixaanayo dadka wanaagsan dhibka ku dhaca iyaga dembigana ilaahay uu kaga ridaa wixii ku haray, darajana ilaahay ugu dallacaa. marka dadka axugu wixii ay sameeyeen haddii duulduul ka soo gaadho ama iyagaba musiibadii wada gaadho, ilaahayna ku darajaynaya. xadiid saxiixa oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam, bukhaari iyo muslim ku sugan, waxaa warinaysa xaaskiisii zaynab bintu jaxsh, ayaa nabigu wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka ummaddan oo iska soconaysa in dhulka lala goynayo. su-aal bay weydiisay asxaabiyadda waxay tihi yaa rasuula allahi amhlaku aw anahliku wa fiina saalixuun, oo miyaanu halaagsanaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaaba nagu jiraan? dad badanoo fiican ee ummaddu mar walba xubaan iskuma raacdo. rasuulku waxa ui sala allahu calayhi wasalam nacam idaa kahura alkhabaf, ha waa la iskii raacinayaa marka dadxunku uu bato. khabarkaasi haddii dad lagu macneeyo wey, khabiidka waxa xunna waa la ydhaa, camalka xun dadka xunna waa la ydhaa. haddii dadka xumi bato ama xumaantuma ay badato, inta kalena imtixaan baa looga dhigayaa oo waa la iswada raacinayaa. wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, iska ilaaliya buu ilahay idhi balaayo kuwa sameeyo qura aan ku egaanayn. waxaynu ogsoonnahay waxaynu barayaa taata ka soo horjeedaa inaynu daacada ilaahay badino oo diinta ilaahay aynu helanna oo ilaahay aynu ka amar qaadanayno inaynu wanaaga dunya iyo wanaaga aakhiraba ku helayno. waan low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maaan gadaqa, dadku hadday tubta fiican ku toosnaan lahaayeen raxmaadkuba kama kala go-een baa ilahay. walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard, dhir iyo dhulba barakooyinka iyo khayrka ayaa isqabsan lahaa hadday wanaagga ilaahay ka guddooman lahayn subxaana wa tacaala, una mahadnaqi lahaayeen oo nicmadiisa ay badan lahaayeen. xalku waxa weeye walaalayaal, waa arkaynaa inaynu dee ilaahay iska dhaadhicin aynu isu ammaano maahe xaqiiqada qof waliba naftiisa haddaanu been sheegayn ama mujtamaceenna waynu arkaynaa waxaa dhiba jira. xalku waxa weye ina ilaahay toobadkeena subxaana wa tacaala. ilaahay baa wuxu uri yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa. ummadda iimaan kala ilaahay u weera wuxuu leeyahay iimaanbaa iska lahaanteen oo shahaadateebe, haddana dembigii waa badan yahay, ilaahay toobadkeena. toobadana shardi baa ku xidhane, toobad nasuuxa oo wanaagsan oo saafiya. casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum, ilaahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay dembigiina markaa uu idinka dhaafi aa gasheen. wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar, jannooyin qiimo badan biyuhu hoos qulqulayaan iyo caanaha iyo malab ayaa ilaahay idin siin doonaa. waxaa intaasi raaca walaalayaal
adduunyada ku faafayo dadkeennii ka yimid baaba iman kara oo dee aynu ka qaadi karnaa. marka talada dhakhaatiirteedu ay bixinayaanna waxa weeye ugu horraynba dhowrkan arrimood ama 5 arrimood. ta koowaad waa tii ilaahay uu faray, ta koowaad oo ah nadaafadda inaynu ku dadaalo. ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badana qalbiga nadiifiya, xaggooda hoosay nadiifiyaan, nadaafadda dushana way jecel yihiin oo bahaaraday ku dadaalaan, deegaankooda, dharkooda, jidhkooda, intaba. sidaa daraaddeed waxaynu aada u badinaynaa waysada. wamaa adraaka ma alwuduu, waysada maxaad ka taqaanaa? nabigu inagu waaliyey sala allahu calayh wasalam in la cusboonaysiiyo. waysada cusboonaysiintiisa salaad walba in loo weysaysto, adigoo iska weyse qaba inaad weysaysato. xubnaha laga weysaysanayo anaa marka laga hadlayo waysada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee wiqaayada sameeya lagu ilaaliyo cudurrada ayay ka mid tahay waysadu. oo waxaynu arkaynaa 4 meelood ama 5 meelood ee boorka iyo bacadka iyo bakteeriyada waajaha ee la kulma baa laga weysaystaa. 2 gacmood, 2 cagood iyo kurtii la madaxii la meydhay, wejigii la meydhay, sankii, afkii, dhegihii, wixii oo dhan kurtay ku yaallaan. intaasaa aynu had iyo jeer boorka iyo wixii soo duulayo iyo wax alla wixii idanaya oo dhan intaasay naga marayaan. intii baa lagu yidhi 5 jeer ama ka badan markaa sunno weysis dee sunno tukanaysana ugu yaraan sanadkii 5 jeer weysisada baa weysadii cusboonaysiinayso. nabiguna saas u ahaa calayhi salaatu wasalaam. intuu salaadaha isku weyse qabi jiro weyse qab ku tukan jiray ma ay badnayn, kaana yujadid alwuduu, waysada u cusboonaysiin jiray. marka arrintaasina cilmiyan waa mid la soo taabtay hadda inay qayb weyn ka hortaga shayga la yidhaahdo cudurrada qayb weyn ka tahay waysada. taas waa midda labaad, marka aynu had iyo jeer qofku dee uu hindhisayo ama qufacayo inuu iyadana ku dadaalo waxaa yara afka lagu nadiifiyo saftiga, ama hadduu waayo maradiisa inuu ku daboolo. waanuna baray nabi maxamed sala allahu calayh wasalam midkiin hadduu candhuuf tufayo buhi maradiisa ha ku tufo, waxaaday isu qabaniga ha kugu egaadaan, dad kale ha gaarsiin. marka taasi macnaheedu waxa wey haddaad masaajidka joogto iska tufi, daaqadda ha ka tufine ku egow oo marada iyo saftiga iyo aad ku tufaysa. sidoo kale waxyaabaha ka muhiimkaa waxaa ka mida markaynu xamaamka ka soo baxno ama aynu doonada inaynu wax cunno inaynu faraxalano. nabiyullaahi maxamed baa inoo jiriyey sala allahu calayh wasalam fariin caafimaad casrigana laga dhigo, laakiin rasuulkaaba inoogu horreeyey oo aynu kaga daynaynaa. markuu xamaamka ka soo baxo muxuu samayn jiray nebigu? ciid buu faraha gelin jiray, gacanta ku istijooday, gacantiisa shariifka ah sala allahu calayhi wasalam, oo balaayo iyo bakteriya lahayn, haddana si ummadda tusaale u noqdo. ciid istaral ama nadiifa ayuu sidaa u gelinayaa, markaasuu ku xoqaya. waxyaabaha wax lagu dilana dee ciiddaa ugu mudan, sida dee loo yidhiba ayga nijaastiisii ciiddaha lagu mayro. marka ciidda iyo biyuhu gacantaa ku maydhayaa. marka wixii aan hesho caruurta in la baro oo ehelka la baro, jaariyadaha la baro oo shaqaalaha la baro, cudurrada wareegoo dhan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyo, ilaahay baa ilaaliye. waxaa ka mida nadaafadda ay ka mid tahay gacmaha la ilaaliyo. qofka meelaha had iyo jeer xamaamada iyo waa inay yaallaan waxa wax lagu nadiifiyaa, saabuunta, shaambooga, waxyaabaha qaalica ahe jaraa cudurrada wareega. taasna aad bay muhiim u tahay. iyo qofku marka uu had iyo jeer raashinka cunayana inuu faraxasho iyana aad bay muhiim u tahay. waxaa ka mida qofku marka gacantiisa meelo badan uu marmariyo inaanu isleeyahay gacanta waxbay soo qaadata ama nadiif maaha, inaanu sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelii manaafidahayd daldaloolay ila waa wada xasaasi dhulkaas, in aanu qofku marmarinin ee gacanta uu ka ilaaliyo. waxaa intaasi raaca qofku hadduu dee istareebo inuu xanuunsanayo, wax walba uu noqon karaa xanuun kan dee faafana waa noqon karaa inuu goobaha caafimaadka si dhaqsaa ula xidhiidho. 5 arrimoodba aad bay muhiim u yihiin oo sharcigeenna uu inoo sheegay, waana lagu talinaya had iyo jeer. mar walbana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj, waxaa la yidhaahda ka hortaga oo islaamkeennu uuna farayo wuu ka fiican yahay ka dabatag oo ah shayga la yidhaahda isdaaweynta. xataa karantiinayntiibaa sharcigeennu na farayo. nabiyullaahi maxamed sala allahu calayh wasalam siduu noo jireeyey, meel haddii daacun ka dhacan intaad ku jirtaan ayay ka bixi,
عند بدك السوق الشاني يجي وإلهي يا وحول بالسعود سيها كنا أسباب إيا دلال والغا مارمان يرى إلهي مكوكر صورنا هاي قدر كيس حتى رئيس كإلهي تأثيره قدر كيس نفر من قدر الله إلى قدر الله الرمانا والبرارجين هاي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أصناعنا وأبداننا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واستر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد